xalqaddii hore waxaynu ku soo aragnay burburkii dunida islaamka oo dhinac walba uu kaga socdo weerarro istabajoog ah oo kaga imaanayay maangooliyiinta ama tataarka. waxaynu aragnay sida muslimiintu ay ugu dhaceen khaladaad halis ah oo horseeday musiibadan isbiirsatay ee ku habsatay ummadda guud ahaan. waxaynu ogaanay sida ay ugu mashquuleen nolosha adduunka, sida ay uga tegeen jidka alleh ku dagaalankiisa, sida ay u kala tegeen oo ay u kala qaybsameen dhexdooda, iyo sida ay u diyaarsan waayeen qalab iyo saanad ciidan oo u babacdhigi karta kan maangooliyaanka. fashilkan iyo burburka magaalo ilaa magaalo ma ahayn wax lama filaan ah, balse wuxuu ahaa mid si weyn loo saadaalin karay marka loo eego habacsanaanta, kala qaybsanaanta iyo dagaalada muslimiinta dhexdooda ka jiray. waxaynu sidoo kale soo aragnay in hogaamiyihii weynaa ee maangooliyaanka ee ka telinayay gobollada faris iyo adarbeijaan uu bilaabay qorshaynta duulaan iyo mawjado cusub oo qabashooyin ah. mu'asasada aflax waxay ugu bishaaraynaysaa dadka Soomaaliyeed ee Quraanka jecel inay markii ugu horeysay muddo 28 sano ah kadib ay bixinayso waxbarasho online ah oo adigoo gurigaaga jooga aad ku baran kartid alifbeetada, Quraanka, ijaazada ilaa barashada qiraa'aadka. haddaba diiwaangelintu way furan tahay. carruur iyo dad waaweynna way iska diiwaangelin karaan. waxayna qaadanaysaa fasallo kooban. xog dheeraad ah oo ku saabsan mu'asasadan ka daalaco website-kooda aflaxonline.com. sidoo kalena iska diiwaangeli WhatsApp lambarkan ka muuqda shaashadda. haddii aad u baahan tahay waalidkaaga oo geeriyooday ama sariiryaal ah in lagu soo gudo acmaasha cumrada, waxaa magaalada Maka diyaar kuugu ah culimo kuu qabanaysa hawshan, idiinna soo duubaya muuqaallo muujinaya inta ay hawshu socoto. wixii faahfaahin ah kala xiriir WhatsApp lambarkan ka muuqda shaashadda ee ah eber 9664746424. sanadkii 634 hijriga oo ku beegnaa 1236 miilaadiga ayuu ku wareegay dhinaca galbeed ee badda Caspian, wuxuuna si xawaare sare leh ugu dhaqaaqay dhanka waqooyi, isagoo dib gacanta ugu soo dhigay Armenia, Georgia, Chechnya iyo Dagestan. intaa markii uu gacanta ku soo dhigay ayuu haddana diray ciidan kale si ay u sii wadaan qabsashooyinka dhanka waqooyi oo ah dhulka maanta loo yaqaan Jamhuuriyadda Ruushka. ciidan uu hogaaminayay nin lagu magacaabi jiray Batu oo ahaa mid ka mid ah hogaamiyayaashii ugu waaweynaa ee Mongoolka, ayaa wuxuu u dhaqaaqay dhanka qabaa'ilkii ku noolaa hareeraha webiga Volga. kadibna wuxuu galay dhulalka ballaaran ee Ruushka ee gaaraya ilaa gudaha Yurub. sida taariikhda ku cad, Mongoolku waxay ahaayeen imbaraatoriyad aad u arxan daran oo meeshii ay tagto cagta maraysa. markii ay Ruushka qabsadeen, waxay geysteen xasuuqyo argagax leh. sanad buuxa ayay gudaha Ruushka marba magaalo qabsanayeen, wixii ka hor yimaadana dhegta dhiigga u darayeen, ilaa kumanaan kun ay u xasuuqeen si aan kala soc lahayn. Batu markan hadafkiisu ma ahayn keliya Ruushka ee wuxuu rabaa inuu dhanka bariga Yurub ka soo galo qaaraddan. wuxuu mid u soo qabsaday magaalooyinkii waaweynaa ee Ruushka sida Razan, Kolomna, Vladimir, Rostov ilaa Moscow oo waqtigaas ahayd magaalada ugu weyn Ruushka. isbuucyo ay go'doon ku hayeen kadib ayay Moscow isdhiibtay, kadibna xasuuq iyo burbur ayay ka geysteen. sidaas ayayna ugu sii siqeen Mongoolku dhulweynaha Ruushka ilaa ay dhammaantiisba gacanta ku dhigeen sanadkii 636 hijriga. arrinta la yaabka leh oo markaa kadib koox ku dhiirata la waayey waa in dhulka Ruushka ee ku fidsan qiyaastii 17 milyan oo kiiloomitir oo laba jibaaran sanad gudihii la qabsado oo weliba dagaalada looga awood bato oo la burburiyo. dalkani maahan oo keliya dal ku fadhiya dhul ballaaran, balse waa mid leh dad aad u tiro badan, qabow daran iyo xaalado aad u adag. dhul ay intaas oo xaaladood ay ka jiraan ayay fardo iyo seef ku qabsadeen, haddana cid in ay istaajiso ama qayb xitaa inay ka difaacato isku dayday ma jirin. kadib qabashadii Ruushka, waxay u sii gudbeen Ukraine. waxay qabsadeen Kiev iyagoo dilay inta badan dadkii deganaa. markii ay qabsadeen Ukraine iyo Ruushka, waxaa hoggaankii ciidanka loo dhiibay nin lagu magacaabo Baydar, kaasoo loo xilsaaray inuu dhanka Yurub u dhaqaaqo, ku jihaystana Poland ilaa waqooyiga Yurub. hoggaamiyihii Ruushka qabtay ee Batu isaguna wuxuu ciidankiisii u dhaqaajiyey dhanka bariga, isagoo u dulaan tegay Hungary. qorshuhu waa in labada ciidan ay ku kulmaan bartamaha Yurub. ciidankii Baydar ayaa ka dhaqaaqay waqooyi galbeed Ukraine una gudbay boqortooyada Poland, iyagoo baabi'iyey inta badan magaalooyinkii Boolishka. boqorkii Poland wuxuu gargaar ka dalbaday Jarmalka, waxaana u yimid ciidamo Jarmal ah si ay uga garab dagaalamaan ciidanka Poland ee wajahayay Mongoolka. labadii ciidanba waa la jabiyey. kooxdii Mongoolka ee Baydarna waxay si fudud gacanta ugu dhigeen guud ahaan dalka Poland. isla sanadkaas, Batu ayaa ka baxay saldhiggii Mongoolka ee Ukraine,
wuxuuna galbeed ula dhaqaaqay ciidankiisii ugu weynaa isagoo galay Hungary. Dagaal culus oo sababay burbur baaxad leh ayaa dhex maray ciidankiisii iyo kuwii Hungary si loo jabiyo awoodda Hungary. Waxaa dhinaca kale dagaalka ka soo galay Baydar oo qabsashadii Poland kadib gacanta ku soo dhigay Slovakia, kadibna dhanka xuduudda ka soo weeraray Hungary. Si gurmadka loo kala jarana, ciidamo kale ayay Mongoolku u direen Croatia ilaa badda Adriatic oo ah bad u dhaxaysa Croatia iyo Talyaaniga, si halkaas looga ilaaliyo ciidamo gurmad ah oo ka imaan karay Talyaaniga ilaa Yurubta kale. Markan Mongoolku waxay gacanta ku hayaan kala barbariga Yurub, waxaa si buuxda suuragal u ahayd inay sii galaan Talyaaniga, Austria ilaa Jarmalka, iyadoo awooddoodu ay si halaag ah ku socoto. Ayaa sanadkii 639 Hijriga waxaa dhacday arrin saameyn weyn ku yeelatay duulaanadii Tataarka ama Mongoolka. Waa geeridii Ogaday Khan. Ogaday Khan waa boqorkii Mongoolka ee xilligaas, wuxuuna ahaa wiilkii Genghis Khan. Batu oo ahaa hogaamiyihii guud ee ciidanka Yurub dagaalka ku hayay, wuxuu hakiyey duulaanadiisii, wuxuuna magacaabay ku-xigeen maamulka sii haya, wuxuuna ku noqday magaalada Karakorum oo u dhow caasimadoodii si uu uga qayb qaato doorashada Khanka weyn ee bedeli doona Ogaday Khan. Inta aynan isbeddelka Mongoolka ka imaanaya ku laaban, aynu qiimayno xaaladda caalamku uu wakhtigaas ku sugnaa. 1. Mongoolku waxay ku fidsan yihiin dhanka bari Kuuriya ilaa galbeed oo ay gaareen xeebaha Talyaaniga meel u dhow. Waqooyiga waxay qabsadeen Siberia, koonfurtana ilaa badda Shiinaha. Waa fiditaan aan horay loo arag, muddo gaaban gudaheed cid sidaas u qabsatay dhulka intaa la eg. Si aan la saadaalin karin ayay ku noqdeen awoodda ugu weyn dunida ee wakhtigaas. Arrinta labaad waa Ogaday Khan waxaa beddelay wiilkiisii Guyuk Khan, kaasoo door biday xoojinta dhulalkii horay loo qabsaday halkii uu ka sii wadi lahaa fiditaan degdeg ah. Siyaasaddan ayaa gaabis ku keentay horusocodkii Mongoolka ee Yurub iyo dunida Islaamka. 3. Mongoolku waxay horay u liqeen inta badan bariga dunida, gaar ahaan dhulkii Muslimku joogay, iyagoo burburiyey wixii ilbaxnimo dhulkaas ka jiray. 4. Dhulalkii dhexe ee Islaamka laga bilaabo Ciraaq ilaa Masar oo ay ku jiraan Shaam, Xijaas iyo Yaman waxay ahaayeen kuwo kala daadsan oo kala qaybsan. Halkii ay isku diyaarin lahaayeen khatarta ku soo socotana, waxay ku mashquulsanaayeen khilaafaad gudahooda ah. Dhulalkii galbeed ee Islaamka sida Liibiya, Tunuusiya, Aljeeriya, Morocco iyo galbeedka Afrika iyaguna si la mid ah ayay u kala jajabeen kadib markii ay daciiftay awooddii khilaafadda ee xeebaha waqooyi. Arrinta shanaad, Yurubtii Kiristanka ahayd waxay si weyn ugu dhibaatootay weeraradii Mongoolka. Malaayiin qof ayaa la dilay, kiniisadahoodii waa la burburiyey, magaalooyinkii waaweynaa sida Moscow iyo Budapest waa la gubay. Roma oo saldhiggooda weyn ahaydna waxaa Kroatia xeebaha dhanka Talyaaniga xiga u fadhiya Tataarkii oo magaalada Roma midiyaha u soo faysanaya. Arrinta lixaad ahna midda ugu muhiimsan, inkastoo ay la kulmeen dhibaatooyin waaweyn, hogaamiyeyaashii galbeedka Yurub waxay u arkayeen gardarrada Mongoolka mid ku meel gaar ah. Way ogaayeen in Mongoolku aysan lahayn hadaf xukun, keliyana ay yihiin kuwo in ay wax burburiyaan u socda, ugu dambaynna iska laaban doona. Taas beddelkeed waxay u arkayeen dagaaladoodii diimeed ee ku salaysnaa Kiristanka ee ka dhan ahaa Muslimiinta mid joogto ah oo ku salaysan mabda' diimeed. Waxay istuseen in halkii Mongoolka lala dagaali lahaa, awoodda Yurubna ay ku sii dhammaan lahayd, ay wada shaqayn buuxda la yeeshaan Mongoolka, qaybna ay ka noqdaan dagaalka uu ku hayo Muslimiinta. Haddaba sababtu maxay ahayd? Si fudud, dagaalkii Kiristanku ay kula jireen Muslimiinta wuxuu ahaa dagaal diimeed. Colaaddaasi waxay ahayd mid caqiido ku dhisan oo joogto ah. Mongoolkuse uma dagaalamayn caqiido darteed, keliya waxay u dagaalamayeen qabsasho, dhac iyo xukun. Diintoodu waxay ahayd mid aan qeexnayn oo isku dhafan. Ma aysan doonayn fidin diin ama dacwo, balse waxay raadinayeen hanti iyo burbur. Ujeedooyinkaas, sida ay reer Yurub aaminsanaayeen, waxay ahaayeen kuwo ku meel gaar ah oo aan waqti dheer sii jiri karin. 7. Kadib ololayaashii Yurub, isbeddelo diimeed oo muuqda ayaa ka dhex dhacay madaxdii sare ee Mongoolka. Hogaamiyeyaal badan oo Mongooliyaan ah ayaa guursaday haween Kiristan ah, taasoo keentay in Kiristanku ay saameyn ku yeeshaan qasaryadii iyo go'aanadii Mongoolka. Arrintani waxay furtay albaab iskaashi oo mustaqbalka dhex mara Kiristanka iyo Mongoolka si ay uga wada hortagaan khilaafadii Cabbaasiyiinta, gacantana loogu dhigo dhulalka Shaam ilaa Masar. 8. Dagaaladii Kiristanka ee ka dhanka ahaa Masar iyo Shaam way sii socdeen. Inkastoo Yurub ay la ildarnaatay burburkii Mongoolka, Masar iyo Suuriya waxaa ka jiray khilaafaad gudaha ah, taasoo Muslimiinta gelisay saddexagal dhimasho leh: Kiristan, Mongooliyaan ama Tataar
iyo hogaamiyeyaal iyaga dhexdooda ishaya oo midba midka kale uu u arko cadowgiisa koobaad. 9 sannadkii 640 hijriga khaliifkii cabbaasiyiinta almuntasir ayaa geeriyooday. waxaa xilka kala wareegay wiilkiisii almuctasim billaah isagoo jiray 38 sano. almuctasim inkastoo lagu yaqaanay cibaado iyo sadaqo, haddana wuxuu ku liitay xirfadda siyaasadda iyo fahamka maamulka dawladeed. intii uu talada hayeyna khilaafadu way sii daciiftay. arrinta tobnaad ee ugu dambaysa waxay ahayd in dhulka u dhexeeya halka tataarku ay joogaan iyo khilaafadii cabbaasiyiinta ay ahayd marin cidhidhi ah oo ku yaalay galbeedka Iiraan, halkaas oo ay degganaayeen shiico loo yaqaan Ismaaciiliyiin, kuwaas oo ahaa dagaalyahanno ku sugnaa qalcado ku yaalay buuraleyda kana soo horjeeday cabbaasiyiintii sunniga ahayd. xilliyada qaar waxaa la shaqayn jiray kiristanka, xitaa maangoliyaanku way ka shaki qabeen, mana doonayn inay u dulqaataan awood dariskooda ah oo madax bannaan. mar kastana tataarku marinkaas isha ayay ku hayeen. si kooban, guyuuk khan wuxuu dhaxlay boqortooyadii ugu awoodda badnayd dunida ee wakhtigaas. kiristanku waxay doonayeen inay la midoobaan tataarka si ay uga hortagaan muslimiinta. muslimiintuna weli way kala qaybsanaayeen, cadaadisna way kala kulmayeen dhinac kasta. mana jirin hogaamiye hiigsanaya iska caabin, balse mid walba wuxuu ku ekaa ilaalinta awoodda yar ee uu haysto. magaalo kastana midda ku xigta ayay iska ilaalinaysay. intii u dhexaysay 639 hijriga ilaa 649 tataarku waxay joojiyeen fiditaankoodii, waxayna diiradda saareen xoojinta dhulalkii ay qabsadeen. taariikhyahanadii muslimiinta ee wakhtigaas si fudud ayay u xuseen khatarta maangoliyaanka sidii inayba dhammaatay. noloshuna waxay u muuqatay caadi. baqhdaad, dimashq iyo qaahira dib u habayn dhaqaale, iskuullo iyo dhismayaal hor leh oo la dhisayo ayaa ka socday, halka deegaanno xoogaa u jira, gaar ahaan deegaanadii dhacay dhanka bari ee muslimiinta ay hayeen kuwo ku jiray gumaysi arxan daran oo ay ku hayeen tataarku. sannadkii 649 hijriga waxay maangoliyaanku doorteen hogaamiye cusub oo lagu magacaabo Monge Khan. ninkan wuxuu lahaa aragti isballaarin oo la mid ah tii ay aaminsanaayeen Jinkiis Khan iyo Ogaday Khan. himiladiisa ugu weyn waxay ahayd burburinta khilaafadii cabbaasiyiinta iyo qabsashada dhulalkii Shaam, Masar iyo wixii ka dambeeyeyba. wuxuu taageero ka helay 3 hogaamiye oo awood lahaa, kuwaasoo kala ahaa Ariq Boke oo haystay maamulka ciidanka, Kublai Khan oo ahaa hogaamiyihii tataarka ee gobollada bari oo ay ku jirto Shiinaha, iyo Holaku Khan oo maamulayay Faris ama Bershiya, isla markaana si toos ah u hortaagnaa dunida islaamka. boqorkan iyo 3 hogaamiyeba waxaa awoowe u ahaa Jinkiis Khan. Holaku Khan wuxuu ahaa hogaamiye ciidan oo caan ku ahaa naxariis darro iyo inuu dhulka la simo meesha uu qabsado. wuxuu nacayb xooggan u qabayay muslimiinta, nacaybkaas oo ay la wadaagtay xaaskiisii kiristanka ahayd Doqus Khatun. Doqus waxaa awoowe u ahaa nin la dhashay Jinkiis Khan oo xilli hore qaatay kiristanka, qoyskeeda hoosena wuxuu ahaa kiristan. gabadhan waxay ka mid ahayd albaabadii furay xiriirkii dhex maray kiristankii Yurub iyo Mongoliyaanka. sidaas ayayna colaaddii Mongoliyaanku ugu milantay nacaybkii kiristanka. Holaku Khan wuxuu si xeel dheer oo nidaamsan ugu diyaargaroobay muddo 5 sano ah si uu u burburiyo khilaafadii cabbaasiyiinta. inkastoo Baqhdaad ay ahayd mid daciif ah, haddana ma uusan degdegin. wuxuu u diyaargaroobay si qorshaysan oo taxaddar leh, kaas oo qayb uu ugu kala dhigdhigay habka xeeladaysan ee Baqhdaad loo tirtiri karo, dhulkeedana loogu beddeli karo webiyo dhiig ah oo qulqulaya. waa inoo qaybta xigta iyo sida Holaku Khan uu u dejiyey weerarkii Baqhdaad.